tartan kubadda cagta ah oo 8 degme caasimadda Hargeysa uga socday garoonka Xawaad leh ee magaalada Hargeysa oo hakad uu soo galay ayaa dib u furmay kadib markii qabanqaabada furitaanka tartanka koobkaasi ay dib uga howlgaleen mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye u magacaabay degmada 26 Juun kuwaasi oo xil culus iska saaray sidii uu tartankaasi u sii socon lahaa mas'uuliyiinta degmada 26 Juun loo soo magacaabay oo ka hadlay furitaanka tartankaasi dib uga bilaabay garoonka Xawaad leh ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada 26 Juun uu soo magacaabay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye arintan garoonka waa la yara xayray dhowr cisho sida awgeed baan nala soo sheegay shalay taliyaha saldhigga Axmed Dacaw aad baan hambalyo ugu direynaa arrinkuna la qaatay in dib u furno wareegii socday marka aad iyo aad baan dhalinyarada u dhiirigelinayna ciyaaraha iyo waxyaabaha ciyaaraha ku saabsan inaan aad iyo aad mar walba uga shaqeyno waxaan noo farxad run ahaantii anagoo degmada 26 Juun inta dabadii degme kale caasimada aan wareegii halkan ugu dhignay wareeguna si qurux badan u socdo sida gudoomiyuhu sheegayna taliyaan isla qaadanay inuu dib noogu furo garoonka dhammaan waxa halkan hambalyo uga diray dhalinyarada 26 Juun iyo 7 degme kale halkan gaar ahaan imika waxaan ciyaar wanaagsan ka filaynaa inay soo bandhigaan degmada Gacan Libaaxnimada ka socda iyo degmada Maxamuud Haybeynimada ka socda runtii oo maanta halkan isku haleeli doona oo himiliye kala Golden Boys isku nimaadno tartankii kooxaha heerka labaad ee xaafadaha ee waliba degmooyinka caasimadda oo dhan ka soo qayb galeen waxaan mahad celinayaa sidoo kale gudoomiyaha 26 Juun Axmed Maxamed iyo Muxaydin Cabdishiil oo isna gudoomiye ku-xigeenkii 26 Juun waxa kale oo mahadnaqayaa gudida nagala soo shaqeysay tartankan oo si fiican u qabsoomo